شاح أي عباين والله شيء حتى وكذا طوايا حتى أنا حتى حسد محل قلدم وأنا حتى جيسا إن أنا جا أهب وان سأله بده marka magaalada aan soo aaday rag oo soo wada dayaayo dumarka xataa ma wax soo wada waxaan dhiilaa indhaha iga yareeya tisoo aniga markaan wadada maraayo aad iyo aad korkayga uga xantooda aniga waxaan ahay gabar qurux badan bal Soomaaliya dunida dhan ku soo wareega waxa gabar Soomaaliya joogta bal gabar anoo kala xitaa ila tartami karta xataa meel soo istaagi karto inaa keenti isku dayabal waan ogahay inay quruxdeeda ku soo jiidatay waxaan ku dhiilaa muuqaalkan oo si sharga rag waxaa jiro oo aniga oo sutun iyo cabay oo 3-4 meelaha sigaarayo aniga waxaan ahay gabadha ugu istaalka badan ugu quruxda badan galmudug yani rag walbana yani way soo damcaayaan aniga waxaan ahay gabadha ugu quruxda badan galmudug hadii aad quruxdeeda ka heshay ay istilkiya ka heshay waxa dhila video noloshii shargareeyo horta qaabka jirkaygu dhisan yahay sidoo kale ta face aniga fuuxan badan milay yani naan indhawaawina san dheer ahay afqur xul alxamdulillah maxay caawayna aniga dadku waxay dhaayeen la kula anigana kulinkayga yani chance ma hayi saas waaye aniga dadku ciita aragtida dad raadiyo boqolkiiba boqol ani marka wadada ana xataa xishoodo waxa sida maxay dadkana ka soo eegaya marka sida meesha dukaanka wax soo qabsan markaan gaari kale ka digmaago rag igu mashquula ama rag gaariyaas joojina way jiraan iyo rag xataa hooshada ka baaqanayo oo dukaamada fadhiya xataa waxa hadda kadib aan ku qasbanahay in aan maalin aan soo bixin oo habeen bis aan soo baxo maadaama hadii aan maalin aan soo baxo gaariyaasha waaweynka waxa laga yaabaa inay qasaaro ay dhaliso qasaar badan sababtoo maadaama mootooyinka meesha marayaan gaariyaasha shirka meesha dadka shacabka adeeganayaan gaariyaashan adana wuxuu ahaay yani madax isku la galaayo dad badan ku qasaari karo gabadhan darteed uu qasaartay la dhiintay nin walba wuxuu dhaacay 100 geela iyo intaas oo milyan lacag ka bixileen markii ciidadana bar xitaa adiga xataa la ciidada ciidada kaliya mar qorana bar anigana de chance ni ma de wili inaan raaxaysto noloshada ku raaxaysto ayaan ugu talagalay anta magaalada Qocel ayaa adig u soo doonto u soo baxay banaanka markaas mootooyinkii gaariyaashii meel aan ka gala mar ayaa waayay iyo dhalinyaradii adigu maxaa tahay horta aniga waxaan gabadh ugu qurxan galmudug gabar ka qurxan in jirto aaminsan wallahi ma aaminsan aniga inaan boqorada galmudug aan ahay gabadh istaalka galmudug ugu qaadanahay waxaan dhihi lahaa caawo wixii ka bilowday waxa ka qabanayaan koolka dhalinyarada soo wacaysa iyo gabdhaha wax dhan aniga waxaan ahay gabar qurux badan bal Soomaaliya dunida dhan ku soo wareega waxa gabar Soomaaliya joogta bal gabar anoo kala xitaa ila tartami karta xataa meel soo istaagi karto iska soo dhaxbaxsha dhidila waan ogahay inay quruxdeeda ku soo jiidatay waxaan ku dhihi lahaa muuqaalkan oo si shargareey adigoo raaliya markii la quruxda inta macnaha indhaha markay buuxisay ee macnaha door macaan shalada guuleeyay wallah mid kale waxa dhameystir karmaa qofkas waxaan rabaa inaan arko inta sikirta ayada inaan arkaan rabaa anigu شاح أي عباين والله شيء حتى وكذا طوايا حتى أنا حتى حسد محل قلدم وأنا حتى جيسا إن أنا جا أهب وان سأله بده marka magaalada aan soo aaday rag oo soo wada dayaayo dumarka xataa ma wax soo wada waxaan dhiilaa indhaha iga yareeya tisoo aniga markaan wadada maraayo aad iyo aad korkayga uga xantooda jiraac uga kacda